iyadoo dhibaato xooggan ay ka taagneed dhanka socdaalka Soomaalida Koonfur Afrika taasi oo dowladda South Africa ay xayiraad aan la macnaynin ku soo rogtay qaxootiga u socdaalayay dalkooda hooyo isla markaana is hortaagtay in garoomada caalamiga ay ka safraan gabi ahaan qaxootiga Soomaaliyeed kuwaasi oo doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda hooyo. Safaaradda Soomaaliya oo dhawaan loo soo magacaabay South Africa ayaa qaaday talaabadii ugu horeysay ee wax ugu qabanayso dhibaatada ay tabanayaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ganacsiga ku haysta dalkani. Safaaradda oo dib u eegis ku sameysay dhammaan cabashooyinka ka soo yeeraysa muwaadiniinta ayaa mudnaanta koowaad siisay inay fududeyso dadka doonaya inay dib ugu laabtaan dalkooda maadaama ay faalin nabadeed ay ka soo baxayso dowladda cusub ee Soomaaliya. Tallaabadani ayaa si weyn u soo dhaweysay Soomaalida Koonfur Afrika kuwaasi oo doonaya inay dib ugu laabtaan isla markaana ka quustay inay ku sii noolaadaan dalkani maadaama ay kala kulmeen khataro xad dhaaf ah waxayna sheegeen inaysan dib dambe ugu soo laaban doonin waddanka Koonfur Afrika. haddaba qaar ka mid ah Soomaalida Koonfur Afrika ayaa arrintaasi soo dhaweysay iyagoo cabira dareenkooda ku aadan dib u furista go'aamka amba safarada dib loogu laabanayo dalka Soomaaliya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Annaga ka dhalinyaro ahaan bulshada ku nool Soomaaliyeed ee ku nool maaragtay waddanka South Africa qaasatan Cape Town anagoo ah waxaan maaragtay aad ugu hambalyeeynaa ama aan maaragtay mahadweyn ugu haynaa safaaradteena oo ah safaaradtii ugu horeysay ee laga furo waddankan anagoo in badan ku dhibaateysneen in aan baxno waddankii aan dib ugu noqono aan soo booqano eheladeena iyo maaragtay waalidiinteena oo dhibaato badan ay naga saarneed waxa maaragtay inoo fududeysay safaaradteena aad iyo aad aan maaragtay ugu hambalyeeynaa waan ugu mahad celinaynaa boqolkiiba boqolna si wanaagsan ayaan u soo dhaweeynaa waan aadan ugu faraxsanahay oo dhibaato weyn ayaan u qabnay safaaradteena in arrimahaas ay noo fududeyso alxamdulillah haddana waa inoo fududeysay maaragtay waxaan leenahay safiirkeena iyo safaaradda dadka shaqaalaheena iyo waxyaabaha ay noo qabatay aad ay ugu mahadsan yihiin intaas in ka badanna waan ka rajeynaynaa insha Allah ta'ala inay noo qabtaan. Safaaradda waan soo dhaweynaa aad iyo aad aan u soo dhaweynaa waan ku faraxsanahay boqolkiiba boqol aad aan ugu faraxsanahay dhibaatooyin badan ka jiro Cape Town oo dhinaca safarka ah go home-ka maadaama maanta nala furay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay boqolkiiba boqol. dadka doonaya inay baxaan ayaa waxa u badan dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 35 jir leh xirfado kala duwan kuwaasi oo la sheegay inay wax ugu tari karaan dalkooda maadaama ay khibrado kala laabanayaan waddankii ay ku noolaayeen ayaa dad badan oo wareysanay ay qabaan inay ka qayb qaadan karaan dib u dhiska dalka Soomaaliya. Maxamed Deeq Muuse Nuur Deeq Darajo Universal TV South Africa.